faa'iideystay in saxoona laga yaabo علي مولي برنا مولي وقيل وناس أنا ما أقترب صوت ما أقترب ما مقصود منه كثير مرة وامتحان خاض وين ما إذا مركو هري شغال مفهم سنة بدأ لو قلت كلا ده كشان حوا عش هان مفيعنه إن سوبرفايزر كده يواد إكستير إذا سمع دام كاستمر وجو كاستمر كميش جو يعني ما ممكن يكون بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق هو محمد شاه حسن وحان كسو على كافي كاستيلو سوبرفايزر صدح سؤالود نلويدي وكلا سيداد واركتا دودة فاضمة إيه أحين إيادو لدن كمسؤول كأحين waxaan uga jawaabnay faadumo way ku saxan tahay sababtoo ah cuntada dhadhankeeda waxa mas'uul ka ah chef kitchen-ka jikada chef-ka ayaa mas'uul ka ah su'aasha labaad ee ah sideed u aragtaa dooda cadde ee ah xitaa hadday dacwooto inay faadumo ka garhelaynin annaga waxaan uga jawaabnay cadde uu ku khaldan yahay sababtoo ah faadumo way ka garhelaysaa su'aasha saddexaad 10 macmiil ee habeen walba dacwoonayo sideed waxalin lahayd cabashadooda 10 macmiil waxaan uga jawaabnay 10 macmiil waxaan ogaan lahaa cabashadooda kadibna waan xalin lahaa anigoo tixgelinaya cabashadooda ama santiin sida waragta dooda Faadumo oo ah in ay dhanka ka mas'uul yihiin jawaabta waxay noqonaysaa Faadumo waxaa laga rabaa inay weydiiso macaamiisha sida cunada ay tahay maadaama ay train hor loo siiyay su'aasha labaad sida waragta dooda cadde oo ah hataa hadday dacwooto inay Faadumo ka garhelaynin sax weeyaan intaas su'aasha saddexaad 10 macaamiil ee haween walba dacwoon sida u xalin lahayd cabashadooda marka hore baartaan sameyn lahaa waxaa weydiin lahaa sababta ay cabashada tasiga miyaa naafada miyaa na weydiiyo kadib tasiga dooxa minaha haddii wax ka dhiman yahay oo kale chefkan u gudbin lahaa waxaan dhihi lahaa minaha tasiga waa wax ka bedeshaa haddii wax kale hadday jiraan insha allah waa isku day lahaa inaan xalin karo shaqadiisa xaq u lahayd mutanigaasi ma qaldana si sax ah koosda ka juudi baa la geliyay qarash baa la geliyay na dhaliif ayaa laga sugayay wali meesha siiri taagay dad siidana ma sii wadi karo si wadana saa ku fashilmay inuu maamulka sare wada ogeysiyo ama dadka tabar lagu celiyo ama shaqadii wax ka qaldan dadka la soo dhisto oo juudi la geliyo labada inuu ka hadlo ilaa maamulka wax ka ogeysiyo su'aasha labaad sida warata cadde macaamilka si uu la macaamilay soo garanaya wixii aqoon u leh علي توتر بقولي وهي أقولت بليه سؤال شوال ودي كفاية ما كفايلاتها مسمعها ما هم بيتستك كفايلاتها لا كذا ما كاس كسر أوفرنا زور سكوا كان عسكر إنه حلو سرنا الوجه كستمر كاس إنه خليك جريء بيرو عافية دقيقة أوكيانو ما ده أصلا هي سبحة عنا كاميرا بينو وانا نستمد ما تودنا كفاي بالماء أو العين غير ما ناقصنا يا ماما نغير هالمقام مسؤول بعد مغرب أخوش غير واجب إلى يسوق دينه أخوش غير صاحبته اللي أخوش غير أنا أخوان عناية ولو سووا أديه يعني سو ويترودري وأنا سأل شغال كنا غنانا سؤال فاضمه أي لهاي دورك دور تزيره كده لا تقدر أنا قلدنا سؤال شو اللي ستعدنا سوفيسك ولا عشان فترة غلطان waxay u muuqataa xil inay ninkii hore ka dhowsaysato ayaa maamulka sare warqad u qoray uu leeyahay labadan supervisor Faadumo iyo Cali ee ka hoos shaqeynaya inay midkoodna ku fiicneen raaligelinta macaamiisha isla markaana aynan waxba ka garanaynin noocyada cabitaanada kullu iyadoo waliba lagu bixiyay bil ka hor tababar ku kacay $5 sida darteed وصل لا شقين كده الحمد لله إلهي كما أصل أنت معلمتي التمانات واي ومعلمتي ما قدم بيسيته وبركس مفسر ما قاعدين حارجيننا ضمانتنا نحسكم بدنا معلمتي أنت إيماني إيمانتنا فرق بين أول حياة
wax badan aan fahnay wax badan aan qaldanay dib u saxnay wax noo saxsanay hore u soo adkeysanay marka ilaahay ma iskala alxamdulillah mid kuwaad mid labaadna presentationka maanta wuxuu taabsan yahay qaybta cabitaanada oo supervisornimadu qaybta u dambaysa ku qaadanaynay because supervisor markaa tahay waxaa lagaa rabaa in wax walba maqaayadda ka soconaya fahansan tahay because shaqadii adaa wada marka dhammaantan waan soo akhrinay waxa meesha ku qoran marka su-aalaha waxaan rabnaa inaan ka jawaabno sida fikirkeena iyo sida u aragna anaga dhan web teamkeena su-aasha kuwaad waxay ahayd sidee u aragtaa warqadda waa caddo u qoro maamulkii wuu ku saxan yahay horta inuu qoro because maxaa lahaa Faadumo iyo Cali labadii mis aqoonin customer care-ka iyo communication-ka qodobka labaad u raaciyay inaysan labadooda garanayn wax cabitaan ah uu ku qaldan yahay taas carada ka tambadisay Cali uu yaqaana cabitaanada kulul oo uu kala yaqaana taasna ku qaldan yahay cadde su-aasha labaad ee sidoo aragtaa dooda Cali ee ku saabsan in xilliga salaada la joogay taas uu ku qaldan yahay because customer waxa laga rabaa inuu ogeysiiyo xaaladda taagan oo ku qanciyo waxaana uu ka soo bedelo laga rabaa Cali inuu sameeyo su-aasha saddexaad sidoo aragtaa Faadumo iyo Cadde ugu jawaabto inaynan wax garanayn ayadoo ku qaldan tahay because tababar la siiyay waqti la geliyay qarash lagu bixiyay horena waxa uu soo aragnay marka casharka akhrineynay warqadda akhrineynay inay ay yaqaanaan rulka saddexaad oo ah cabitaanada kulul soo kala baxaan hore soo aragnay iyo inay dhaxdo waxba iga magalin hadaa xitaa aqaan oo ku qaldan tahay because professor tahay waxa laga rabaa wax walba inay garanayso iyo qaabka yihiin inta soo baxaa maasantiin labantiin in marka biri abdullah yiraahdo brief good laga sii lafta kood laana waxaan qofka qalbigiisa wax ku jiro ma ogaan karo marka macnaheedu awna kan ma ogaan karo laakiin ama asaa ku soo shaqeeyay ama intuu ka bartay si marka laftarkeeda uu asaga faham guud u qaato qofka aan waxa niyadiisa ku jiro inay goobjoogayaal ahaadaan oo brief good na siisaan yani tusaale kale sidoo liibaan ka hadlay shaqa ku jirta shaqada wala shifti soo gashay habeenkii shaqada la kala nagaamisay subax dadka ku soo gali lahaa faqada marka qof waiter oo active ah ama barista aad ugu maarmin waa xogaha ka cudurda xaaladu sheeg xaaladdaas markaad qiimayso waxaad u ah in maalin kale ugu bedesho ama si kale u maaraysa aan u gaarto laakiin qofka isaga inaan ka maarmin aan u sheeg haddii tusaale oo kale uu maamulka u tago ama uu taleefonka waca ama uu caadi u tago uu aad ugu yaraaca cala xogaha isagana dee meel laga boodo mana waa barti waa end pointiga waa inuu adiga kuu soo celiyo iyo inuu go-aanka gaaro wax ka dhexeey marka waxaa ku habboon inuu go-aanka gaaro yihahdo orod iska bax adna uu kusoo wargeliyo yihahdo ninkaas waa bil ka tasho waa kula fasaxay si inuu adiga kuu soo celiyo yihahdo waxaad iska soo dhigi karaysaa supervisorkaa sax roolka laga rabo inuu maamulka qaado managerka waa roolka markaas mararka qaar xataa inaad asaga ku ixtiraamaysa laga yaabaa markuu yihahdo qofkaas waa kaa fasaxay ka tasho adiga inaad niyad ahaan aad xanuun dareenta laga yaabaa ilan shaqada awoodid mo ka tashaa waa ka tashan kartaa laakiin maanta shaqada welwalaa ku jirtaa culays inta ka iman kartan ida laftirka go-aanaasay qaadanayaan yaryar shaqa saamaynta lagu qodob waa qodobkaas qodobka labaad oo yani aan yar xoojinahay hadda kiyaada uga yahay in wixii aan baranay iyo qaabka shaqada loo rabo iyo nidaamka in ayagana xoogaa kaga fahmisa sharxad guud oo yaroo 5 minutes inaad u samaysan ka codsanayna amaasan wax dheeraad kuma sii daraya arrinta cabdulaahi sii xoojinaya aada u mahadsantihiin ustaadka iyo ibraahim iyo kameramaanka naga sharafta leh aada u mahadsantahay dadaalkaaga waqtiga aad haysay arrinta hadda cabdulaahi u ka hadla waa in aada muhiim u ah sababtoo ah hadda dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa inta supervisorkaan ahaa ay soo martay waxay ahayd maalmo waxaa jira qofka shaqaalaha aan la fasixin oo aada u adag oo tusaale ahaan waa dareemi kartaan ciidda oo kale waxaan xasuustaa anoo maalin ciid ah zaxmad ka cabsanayo oo diyaargarow adag ku jiro in layga fasaxay qofkii baaristaha ahay igu weysan halka qof ee keliya meesha joogay islahaa zaxmaddaas way maarayn karaa yaa layga fasaxay weli waa xasuustaa intuu ii yimid baa waxaan walaalo kuma fasixi karo berri waa ciid waana halka maalin arag inaa shaqaysan walba maalin kale kuu dhexgelina
waa iga tegay sida dhiibaan sheegay maamuluhu tegay waa la fasaxay waxaana la ii sheegay riboodka lagu soo celiyay waxaa la ii sheegay laytan aan wax ka qaban karin maalinta labaad ayadana aadka iigu adkeed waxay ahayd maalmaha ciidda wadantay 3 maalmood waaye maalinkii ciidda rasmiga ahayd qof aan laga fasaxay oo muhiim isla ciiddii laftirkeeda qof booska ii buuxinaya shaqadoo socoto laga fasaxay markaas waxay noqotay anigii ninkii maamulaha inaan madaxa isla galo marka berito waxaan rajeynaa insha allah qofka maamulaha goobta maamulo in loo sheego supervisorka ayaa mas-uulka ah shaqada operationka socoto lagulana xisaabtamaya wixii fasaxa iyo wixii nidaam intaad idinka soo kala strategic plan usoo samaysan inaad fahansiisaan maamulaha howlkiisa iyo supervisorka howlkiisa insha allah السلام عليكم هذا هو ما سنتي كنسل اسكت بحق هنا طلب كنسل او في عام لكن هذا رقم ما فيلك الأستاذي سؤال سدحاد ماركت waxaa u malaysaa inay serious tahay dadku waxay u badan yihiin oo hadda supervisorada waxay cilmigooda ama aqoontooda lahayn in supervisor looga dhigo oo kale tusaalahaan oo kale cabitaanadii iyo kafeeyada iyo waxaas inuu qofkan si fiican u aqoon marka haddii bunkaan la dhaho qofka supervisor ka taa inuu fahmi karo kii gubtay kii fiican kii halaabi rabo marka waxaa waaye very critical waaye su-aashaas rule of stage waa qaateen training waa la sameeyay ما إن جنرال كهذا فهذا ما هذا يعني حكوا أن دعونا ساني شقية ما هم معنا إنا وح كقلبنا إيه وح كسحسن أنا شقية ما يعني هو فاهم سنين دكتور بعد ريسك إيه إن خلص إيه تاي وح أنا اليوم لقي استمر كل طلعين